muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa maalinba maalinta ka dambaysa kor u kacaya sixir bararka baahsan ee ka jira gudaha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shacabka kala duwan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxay cabasho weyn ka qabaan sixir bararkaasi. Dhawaanay ahayd kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo mas'uuliyiin cusub u magacaabay Banka Dhexe ee Soomaaliland. Qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyo sidoo kale dhalinyarada aqoon-yahanka ee ka qalin jabisay kulliyadda dhaqaalaha ayaa mar telefishinka Star maanta wax ka weydiiyay sixir bararka dalka ka jira. Waxay si adag uga hadleen sixir bararkaasi dalka hafeeyay, waxaana sidoo kale mas'uuliyiinta banka cusub ee Soomaaliland ay u direen fariimo. waxaan ognahay in imika banka cusub loo magacaabay madax cusub, marka talooyinka ay soo jeedeen madaxda cusub ee banka waa in ay si qoladii hore qardajeexin ay xaqiiqada ku sareeyaan. imika banku wuxuu soo diraa subaxii $20 suuqana sarifku wuxuu marayaa $60. marka waxa weeye waxa jira mooganaan aan banku ka warhaynin sixir bararka iyo halka uu maray. talaabooyinkii guddiga sixir bararka ay qaadeen waa aragteen oo waxba kama tarin sixir bararkii. imikana talaabo kale ay dawladdu soo rogtay oo ah inay maciishadii saamayso. bariga hore sarifka quru ahaa imika waa tii cashuurin la dalacay 40%, boqolkiiba 40 kaasi wuxuu dul saaran yahay maciishadii. laba saameynood bay keenaysaa markii hore dadka shilinka qaata ama mushaaharaadka shilinka ku shaqeeya ayuunba dhibaatadan ay saameynaysa. imikana dadkii waa laga wada simayo 40 kan la kordhiyay wuxuu saameyn buuxda ku leeyahay bulshadii oo dhan oo maciishadii uu saaran yahay, gawaadhidii uu saaran yahay, dharkii uu saaran yahay, wax kasta uu saaran yahay. xalka waxa weeye dawladdu waxay iska indhatirtay dhibaatadii qaadka, waxay iska indhatirtay arigii oo suuqyadiisa xidhmeen, waxay iska indhatirtay lacagtii iyada ay soo daabacaysay oo ah saameynta ugu badanba. dawladdu waxay weerartay shirkadii wax soo saar. imikana waa aragtaa talaabadaasi may noqon mid suuragala, mid sicir bararka ka bedeshay may noqon. imika xalku waxa weeye in arigana wax soo saarkeena la xoojiyo, arigana suuq loo raadiyo. waad ogtiinoo bankiga dhexe message baa la soo diraa, waxa la dhahaa saaka sarifku inta soo maraya, haddana inta la soo diro iyo inta suuqa laga sarifaya isma laha. farqi weyn baa u dhaxeeya, ugu yaraan 40 shilin baa u dhaxeeya. taas horta waa talaabadan ka hadlaya waxa weeye aad baan u soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub ee bankiga dhexe. insha Allah waxaan ka rajeynayaa inuu wax badan qabto, isbedel wanaagsan inuu muujiyo. waxaynu ognahay in la bedelay mas'uuliyiintii bankiga dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland saas la mid ah. maalintii ilaahay soo gadoobo bankiga dhexe Soomaaliland wuxuu ku soo dirayaa sarif hore inta laba dhaafin karo. wuxuu ku soo dirayaa gacanta hore marka doolarka sarifaysan 200, wuxuu ku halkii doolar wuxuu ku soo dirayaa 10,250 shilin. gacanta daba wuxuu ku soo dirayaa 10,300. inta laba dhaafin karo ayuu ku oranayaa. saas la mid waxa la sameeyay sariflayaashan waxay sameysteen nin waliba waxa loo doonayo ka dhigtay. qaar ayaa ku sarifaya $100 $1,30, qaar $1,40, qaar $1,50, qaarna waxay gaarsiin $1,60. marka waxa loo baahan yahay inay wada socdaan. marka hore bankiga dhexe waxa loo baahan yahay marka hore inuu isagu mas'uuliyadda gacanta ku dhigo. marka waxaan soo jeedinaa mas'uuliyiinta bankiga dhexe saaka la magacaabay inay balkhurdooda ku shaqeeyaan oo ay dadkii waxaan aqoonta loo kala kaashadaan oo ay maskaxdooda ka keenin wax day kolba day iyagu day iska mala awaaleen. banka dhexe maalin walba message buu noo soo diraa. message-ku wuxuu leeyahay sarifka inta soo maraya, haddana sarifka intii ma joogo suuqa waxa laga sarifayaa intuu sheego wuxuu dheeriyaa hadduu ugu yaraado wuxuu dheeriyaa 35 laana. isma laha. waxaanu leenahay banka dhexe sarifkii haddana haysan, laakiin bankii dhexe isagoo sicirkiina haysan inuu gooyo sariflayaasha ayuu haddana message soo diraya. waxaanu leenahay message-yadu naga buuxinin in bogoskii baa naga buuxsamay. marka waxaanu leenahay qoladii hore way ku fashilantay banka dhexe iyo wax ka qabashada sarifka lacagaha iyo sicir bararka arrimihiisa. waxaan leenahay qoladan cusub waa inay ku dadaashaan inay soo fashilsaan raydkan lagu sarifaya lacagta iyo waxa soo saartaan inay soo faan. waxa kaliya aad moodaa imika inay wada socdaan bankiga dhexe iyo Telesom waxay soo diraan, laakiin suuqa marka sariflo wuxuu kugu sarifay wax ka duwan wixii kale. sicir bararkuna imika wuu sii laba kacleeyay. waxay noqotay waxaan stable ahayn oo qof waliba wuxuu doono uu ku sarifaya halka dollar, qof waliba wuxuu doono uu ku iibinayo dollarka suuqa. marka waxaan farayaa madaxda kala duwan ee banka dadkiina waxaan u soo dirayaan message-kan saacad walba soo galaya iyo waxa uu suuqa ka maraya halka dollar. wax isla maaha. xukuumadda Soomaaliland way ku fashilantay, waana ku fashilantay inay xakamayso sixir bararka aafeeyay bulshada Soomaaliland iyo siyaasad xumada xukuumadda cusub. labadii xukuumadood ee kulmiye kala dambeeyayba way ku fashilmeen inay xakameeyaan sixir bararka. isku soo wada xooriyo shacabka kala duwan ee ku nool Soomaaliland ayaa waxay dhowrayaan talaabada ay mas'uuliyiinta cusub ee banka Soomaaliland ay ka qaadaan sixir bararka dalka aafeeyay iyo sidoo kale jaangoynta sarifka dollarka iyo shilinka Soomaaliland. Khalid Bakeyle, Fogaan Aragga Xorta, Star TV, Burco.